iskadooyin waxaa jirta oo minimum ku siinayso $2,000 bishii bishii isbuuciga bishii okay laakiin waxyaalo kale oo benefits ama fawaa'id ah jirto faa'iidooyin oo dhinaca ku yaala waxaa ka mid ah tikidooyin oo bilaash ah lagu siinayo oo free ah adii familkaaga waxaa ka mid maxaa la dhahaa hotel السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامجكنا بودكاسtka xalaqada labaad fadhiga labaad maanta insha Allah waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan duulimaanta iyo pilotnimada maanta waxaan oo ah Maxamed Nuugani Maxamed Cumaani ku magac dheer walaal ku soo dhawaada insha Allah barnaamijkeena waa ku dhawaay walaalkay Umar codka microphone ku dhaweey إن شاء الله محلنا سوني شيء قبل وحكى لي دونا دوليماتك يو نوعية شيء كلا بحال إن شاء الله نوبلا محمد العماني دولتانك جعلك أو قبتت يو هيك جايسيسي يو ما كوي كم كذا experience كا أو دوليمات أنت ديارة صار عاد experience كا يو حكوا جعليسي قال جعلك أو قبتت إنها بايلوت نقطة بايلوت horta waxay ku bilaawtay markaan yaraa hooyaday leeyahay dhaafaysa safarkeeda badnay marka anigana meel kasta u raaci jiray ma fahmino marka waxay ka bilaawtay marka meesha ay ka bilaawtay in faamino safarada Afrika ama Carabta marka yani si waan la yaabay jiray diyaaradda oo kacayso markay degayso markay jawi ku jirto marka ay maxaa la dhahaa caadka marayso waxyaalahaas dhan marka maanan garanayn sida loo wado iyo yani waxaan u malay jiray inay adag tahay لكن مركا سيف عن أقلي مجال كان أما ميشن وحان أقاذي إني إيزي تاي أما سهلة تاي وحكستنا واي يعني ننع أفييشن أما دوليمات كما هني وننع كست هذا إن حالي هذا أجعلاتي ذو أدرى عدد أما وحكست أسو بسد أدبرتيد وإيزي بكون قنايا وحكست ذلك وكفرين نعم هذا حالة هاي دولمات حق جعلاتي قلقيستي كسوق هذا دولمات سفر هذا جيتي نعم هو هذا جيتي إلى كياسيو آمين إن شاء الله يو هو يكون سوما زنا مسلمين تتلاحن آمين قلقيال ما كان لك صوت بقشالك عاد بلابتي دولمات أنا حكي بقتي وحسي بس بلابتي ما جوا هذا محلا ها waxaan bilaabay ground school oo PPL macnaheedana ay tahay waa private pilot license marka private pilot license ama hadda ku bilaabo inaan ku sharxo waxaa jirto 3 license oo ugu weyn major license way jirtaa license mar loo laakiin waxaa la dhahaa ratings marka saddexda ugu weyn waa PPL private pilot license oo la soo gaabiyay tan labaad waxa waa CPL waxa la soo gaabiyay commercial pilot license CPL tan ugu dambeysana waa ATPL air transportation license tan ugu dambeysa waa adiga airline ama shirkadooyinka oo duulimaadyada waxay ku weydiinayaan license kan hadda haysatid هذا يستد وشقوي بدنا هلكتا وكمية دوليمادية العالم كه إمارات ويعني شهادة ده سأقول سريع شهادة ده سأقول سريع مركا دوليمات كان مو بانو قار كود وحسلين دوليمات هو باهية جامعتنا وصوب حديد لعق بدنا وباهية مية هذا كوجو حرينا إيو سا أديك نوجو فايدة سلهت على ده flight schools waxa la dhahay jiro iyo dhinaca jaamacadda university taas waa academy marka online way jirtaa lacag darabti inaad save gareysid ama lacag meel dhigatid online ahana ku suubine
marka aad rabtid ama diyaar aad tahay imtixaanka inaad qaadatid waa hore u galaysaa laakiin si fudud aan rabaa inaan u sharxo marka ugu horeyso PPL waa inaad dhigataa PPL shahaadada ugu yagayso shahaadada ugu hooseyso ama ugu hooseyso aad ka bilaabi kartid waay marka noocyo badan ay jiraan oo maxaa la diyaaradooyin helicopter ama seaplane ay jirto iyo aircraft ama helicopter halaas markaad baranaysid ya kuligooda waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin hababka diyaarad kasta ay leedahay way ku kala duwan yihiin marka bilaawno license ugu horeeyo inaad qaadatid waa PPL private pilot license marka saa ku qaadatid private pilot license waxaa u baahan tahay inaa ama college aadid ama flight school wax la dhahaya dugsi duulimaad marka waxaa jirto 3 qaybood umaleynaa ama 2 qaybood qaybta ugu horeyso waxaa waaye maxaa la dhahaa inaa online ka baratid marka practical aad rabtidne inaa iskoolka aadid lacagta saa u yaraysid kostiga tan kalena waxaa jirto maxaa la dhahaa iskoolka inaa aadido instructor wax la dhaha jiro ama teacher dadku u yaqaanaha teacher dhinaca duulimaad waxaa lagu wacaa instructorka marka waa hogaamiye waa macallin marka instructor inuu wax ku baro waaye ground school aa jiro iyo ground school haddaad dhamaysid waa yani ground school waxaa ka baranaysaa theoryga ka baranaysaa theory waxaa waaye akhris duulimaadka yani akhris ahaan iyo yani duulimaadka suu u shaqeeyaa iyo soo u kala baxaa diyaaradda see u shaqeysaa jawiga waxyaalo badan iyo saa ula hadli lahayd tacliim iftiraadi ahaan tacliim iftiraadi maxaa laga wadaa iyo soo u kala baxo marka tacliimka yani buug ahaan ina wax lagu baro laakiin practice ka maqan yani amalkiina ku shaqeey baasina ku shaqeeyay bisna lagu tuso ka maqan sax waay marka theory ahaan ama wax akhris ahaan marka lagu baro oo lagu diyaariyo marka diyaar tahay ya waxa lagu sii deenayaa samada saa u fly gareysto taasna waxaa la dhahaa solo qofka marka solo wuxuu ku gaari karaa inuu baaso imtixaanka ground school inuu baaso ground school marka maxaa la yiraahdaa imtixaankan waa inaa keentaa 70% markaas kadib oo instructorkaaga wuxuu ku bari karaa practical ahaan diyaaradda sida loo shido diyaaradda sida hawada loo geliyo take off landings sida loo kiciyo sida loo maxaa la dhahaa dhulka loogu soo dejiyo airportka wax dhan wuu ku barayaa practice now pilotku license ku hore waa ka hadalne kan labaad okay license-kaas maanta qofka ma ko qaato oo balto license-ka oo horeeyo oo waxa ku tilmaamtay BPL halkaanka aad u maayeen BPL-ka qofka maanta ma ko balto hadduu shaqo ku tagaa ilaa inta shaqo ku tagaa BPL-ka hadduu bartaa BPL-ka hadduu baratid horta passengers ma qaadi kartid ama dad ma qaadi kartid laakiin license-kan wuxuu kaa saacideynaa inaa keligaa tababaratid keligaa inaad tababaratid yani waxaa lagu ogolaanaa inaad keligaa diyaaradda wadi kartid oo license-ka haysatid laakiin ma lagu ogolo inaad dad wadadid oo lacag ka qaadatid waa shay qaali ah waqti codka programkeena halkan hoos ku qoran aad u mahadsantahay duulitaanka PPL BBL-ka maanta waxaa dhacday wuxuu ka caawinaa inaad maxaa lahaa aad private ahaan practice ku samaysid diyaarada rabtid shakhsi ahaan inaad ku duushid laakiin se qofka maanta Africa joogo especially aan Soomaaliya ka soo qaadnay iyo East Africa oo Kenya camal qof private ahaan oo diyaarad u wadi karo maanta ma jirto yani looma ogola صح horta hadda saa adiga qalad ugu fahamtay dad badan aa qalad ugu fahmaan private markaa dhaw private macnaheeda ma aha pilotka oo adiga diyaarad oo private wado ma aha
وشخصي أهان يعني شخصي ahaan ama waxaan ka hadlaynaa license private wax la dhahayo jirto license يعني شخصي أخوف كذا بوكي سيريس إسكا قادنا Maya, بسموه saas ma ka wadi. أوكي saas ma ka wadi markaan dhahayo private pilot tan waxay ku saamaxay ama waxay ku ogolaanay inaa wadi diyaaradda أها inaa wadi diyaaradda oo aadan qaadin passengers ama dad ها ya aan ijaaranin adi نعم oo lacag kaga qaadan dadka أوكي laakiin haddaa u imaano maxaa la dhahaa CPL ها commercial وليفل levelka ku xigo haa waa commercial pilot license commercial pilot license haddaa qaadatid oona ku baasid imtixaanka waxay ku saacideynaya ina shirkad u shaqeyso أها ama private sector au shaqeysid private jet camal diyaarad keligaa gooni ah نعم inaad dad u wadid diyaarad ay noqonaya marka taas yani isku xirin private ahaan iyo BBL ka maya private pilot license ahaan أوكي license iyo qofka markuu private plane wadayo ama diyaarad oo qaas ah uu wadayo marka qaas wadaysid diyaaradda waa inaa haysata CPL commercial pilot license because waxaa qaadaysaa passengers dadaa qaadaysaa soo maa lacagna way kuu socotaa okay meeqa sano qaadina markaas intaas barasha qaybka iyo waxa markaas kusoo kogdhayo wallahi adeeg kugu xiran tahay kowgii iyo sida majhuudkaaga iyo waxbarashadaada almost waxay qaadataa 2 years meelaas okay 2 sano keli 2 sano bis wow 2 sano keli yani laakiin dadku waxay u maleeyaan inay wax badan qaadato ama 4 sano inay qaadato laakiin jaamacadda ahaan 4 sano ay qaadataa okay 4 sano dhahno 4 sano Soomaadka 4 sano maanta qofka inuu wax barto oo 4 sano gudaheed diyaad xilku ku joogto qofka inuu ku taxakumo oo meesha uu la ahaado waa wax adag ma aha dadku adka naftiga waxa maskaxdaada waa ka believe yani baasha wax loo saad sax aha wanda shimay saabki yani maya arin adag ma aha maxaa yeelay markaad qaadanaysid PPL ama license ugu horeeyo naam waxyaalo badan lagu baraa basics ka lagu baraa ha iyo waxaan say ku imaadeen aha yani wax kasta lagu baraa ilaa aad ka fahantid naam hada waxay kugu qaadanayaan 3 bil aha ay kugu qaadanayaan marka waxaas fahantid wixii ka sii koreeyo ama diyaaradda ugu weyn waa same sida loo wada waa same mid weyn waa same ha naam sida samadu golayn waa same laakiin systemka ya diyaaradda yar iyo systemka diyaaradda weyn isku mid maaha taas le baranaya maahane wax isku mid waaye diyaaradda ciidankana oo kala duwan yihiin diyaaradda ciidanka ha mawduuc kale waa kaas okay dhinaca waa takhasuska maahan qofka maanta iskuul ma ku yaalo dhanka Soomaaliya hadaan dhaho iskuul ma ku yaalo Soomaaliya oo diyooda lagu barto ma umaleynaayo laakiin waa laga yaabaa soo ma magaadina laga yaabaa adiga inaad la soconin oo ku taala laakiin waa maleynaa waa loo maleynaa insha Allah ma ogi laakiin oo ku taala magaceeda igu maqan laakiin hadda hal iskuul ku yaalo laakiin dhalinyarta Soomaaliga uma badna hadda inay bartaan maxaa la dhahaa uma badna dad hadda duulimaadka badanaya aga maanta duulimaadka dadkan intaan u gudbin maxaa la leeyahay saddexaad qaabkee is dhihi kartaa qaabkee u wacyi geli kartaa afahamsi kartaa duulimaadkan wax fiican tahay dadka shaqo ahaan uma arkaan maanta ninka wiilka dhalinyarka wuxuu ka baqaya waxa laga yaabaa ninka baqo oo ka fikiro maanta hadaa bagatid waxaad go'mo ku shaqaysanay shaqo ku helaysaa go'mo ku gaaraysaa sax ay fahamtay umaleena sax maanta asaasiyaadka nolosha oo yani adayna meel ka soo baxdid familka wax u tagtid ka aan ciyaalka ay oodkaan meel saartid yani nolol dhameystir maanta mugta qof dhalinyarta waqtiyaada lagu jiro dreams aan leeyahay wiyoodin aan dad qaarna ugu mooysa dad qaarna waxa soo dal uma naqanayso qof ka maanta wax soo bartay sax oo waxa soo bartay maanta oo waxa soo bartay maanta aan ku shaqaysanaynin mise aan sameeynin fa dhankaas ugu bixina والله horta su'aal adag waaye su'aal aad iyo aad adag waaye horta duulimaadka haddaan ka hadalno duulimaadka bis maaha diyaaradooyin iyo waditaankeeda iyo maaha waa wax yani wax badan waa team aviation dhan waa team so aviationka dhan haddaa ka hadalno waxay qaadanaya like 2 saacadood
laakiin aviation ahaan waxyaalo badan aa jirta shaqooyin badan oo bis aan duulimaadkeena ama pilot ahayn oo okay waxyaalo badan aa jiro airportka hadda ka soo qaado mithaal ama example waxa dhan airportka shaqooyin taalo can you imagine waxyaalo badan soo maaha way tag badan yihiin xagga farsamo yaqaan engineer-ka kamid ah farsamo yaqaan waxyaalo qoy badan haddana waxaa kusii dhiman towerka dadka ka shaqeeya Soomaali lagu dhahaa towerka waa xagaha mudifiinta waa dadka yani waa muraqaba برج المراقبة برج المراقبة وذاتك دولمانتا لايت هاوس عمل واي او wax lagu fiiriyo diyaaradaha Soomaaliya laga control diyaaradaha meesh nacam Soomaaliya no good so okay ma علينا qof baa dhibkan leedahay waxa la dhahaa burj المراقبة towerka oo maxaa la dhahaa waa laga control waa meesha diyaaradaha laga control kolboodiyaha right qof Soomaali ku dhagay halkan fadhiga kamid gadaashad marka towerka shaqooyin badan aa taalo naam oo diyaaradda fiirina kood wuxuu siinaa diyaaradda maxaa la clearance inay kacdo ama ay soo degto ama inay cararto taxiways ama ku socoto qof kasta shaqo uu leeyahay waxyaalo badan aa jirto inay duusha يعني qof kasta shaqo uu leeyahay marka haddaa fiiriso shaqooyinka oo aviationka ama duulimaadka way badan yihiin oo tiro badan yihiin marka dhalinyarada fursad ay haystaan ma u baahna maxaa la dhahaa يعني ma u baahna wax fara badan ama lacag fara badan ay ku bartaan waxaan hadda caalamku wuxuu noqday technology waa يعني sanad kasta wuu sii kordhayaa technology waa sii waxay noqonaysaa يعني developed وسي يعني وسي فعنانيسا waxa ku soo kordhaya waxa ku soo kordhaya sanad kasta maalin kasta marka ina technology ama waxbarashada ay ka faa'iideystaan oo online waxbarashada iyo waxyaabo kale badanki dhalinyarada dad badan maanta wadi waa mise ma fahamsana online qaabka wax loo barto qaadna waxa uu arkaan inuu agan culus tahay barashadkiis qaadna inuu arkaan waqtiga bay isku keenaynin لأنه مانتا old school هذا هو system كهذا وقف كخصب حكوا إنه ماشي إماضة أوفريس قفنا سام بقى وقت يصور دمية وهالك إماضة جامعة هذا مسا school كهذا أول اللي جوا وقت يسهل كانوا سي وقصبينه وقت يقولوا مال أقوم بحب لكن مانتا ده أونلاين نحكي بالنسبة موبايل كهذا مس كمبيوتر كهذا فيديو كول كلا لقينا قشيت واتساب لقينا قشيت فيسبوك كومنت ناس كأخرسيت وكلنا قشيت فأجمع كلا لقى إنكم مشغول يعني فأنت قابك لوج بحياة هيسا قفكم مسا هذا قفك كحرين يعني يو سيد information كاس أو هلاي أما أو راديو أسيك حرين تاعي مرة حاجرتو على ده كورسوين أونلاين public كلا صادقو أما أونلاين كلا صادقو أو لقى يا أبو إنه كوجو كورسو ده سينه إنه على ده لقى يا أبو $10 إنه تاعي لكن هذا في رصيد دين عن جامعتين فربضن تاعي فرصة أسكالية بس مركا هذيك رادس كايو كحرين تاعي يوم حالنا تطلعات كايو أما سأوجع شيء وحن إنا وهجا جسد مركا استعد هذيك دون تد أو وحيالهن فاهمينه رادسيت أسيرج جريسيت يعني waxay ku xiran tahay your passion ama dulqaadka nacam يعني waxa maanta yala tir badan ku jiraan internetka online ahaan laakiin dadka ay raadiyaan ama waxay actions ay suubiyaan dhaqdhaqaaq ay ku raadiyaan waxa waqti geliya waa hele nacam waqti geliyaan like Somali TikTok u sheeg ma TikTok waa talent yaga shali waa talent yani TikTok laakiin qaar waxa jiraan TikTok yada yani soo galaan laakiin ma sha Allah talent leeyin yani side job leeyin waxa laga yaabaa pilot inuu yahay oo laakiin TikTok soo galo okay TikTok aniga inay pilot nimada lesson ka saddexaad maanta waxay ahayd lesson kale wuxuu ahaa waxa soo qaadanay PPL iyo CPL ya midka kale saddexaad wuxuu ahaa tan saddexaad waxa waaye ATPL kaas ma faan ka baxay
ATPL ka muxuu yahay ATPL mise ila the qofka last maanta ma step ko waay. qaato The last step waay. okay ma ko qaato ilaa halkuu gaaga wallahi waxay ku xiran tahay airline-ka adiga aad job karaasatid ama shaqo hadda ka soo qaad maxaa la lahaa ka soo qaad Emirates Airline shaqa u raadsatay marka hadda pilot tahay waa inaad haysataa type rating macnaheedu waxa waaye diyaaradda maxaa la dhahaa type rating yani nooc diyaaradda aad wax ku soo bartay okay ka soo qaad hadda 747 diyaarad 747 marka shirkadooyin waxaa jira oo type rating ku siinaya yani waxay ku dhahayaan kaalay anigaa noo shaqaynaysaa tababaraa ku siinaynaa type rating waa systemka diyaaradda laftigeeda lagu bagaa systemka diyaaradda si u shaqaynaysa 74 noocaas yani diyaaraddaas noocaas type rating allah marka waa lagu soo baraa adeeg kugu xiran tahay saa wax u fahantid adiga 14 days meelahaas waay qaadinaysaa systemka diyaaradana inoo lagu bago 14 days adoo markaa shahaadada haysto SLR ATPL ka marka 14 days I think qaadane waa waqtigeeda aad u yaga ama ka adi oo foofigii ku bixinaya maxaa lahaa kambaniyalka duulimaanta kambaniyalka oo diyaaradda soo saar afan 14 days waxa waaye maxaa la dhahaa shahaado badalka shahaadooyinka yani shahaadooyin waxaa jirta oo ay maxaa la dhahaa FAA markaa rabtid inaad u bedeshid maxaa la dhahaa markaa rabtid inaad u bedeshid EASA يعني waxaa jirta okay FAA waxa waaye Federal Aviation waxaa lagu isticmaalaa shahaadooyinkaas United States ama Mareykanka dhinaca Yurub haddaa imaadid shahaadooyin kale qabaan okay dhankaas haddaa joogtid waa shahaadooyinkaas aad shaqo ku helaysaa okay marka Yurub joogtidne shahaadooyin gooni EASA okay yani European waaye shahaadooyinka European qaadooyinka kale adduunka saddexa kale soo hogtay afarta kale soo hogtay waa lixda qaadad ayakana shahaadooyin gooni ma leeyihin qaadad walba mise maya waa labadaan isticmaalaan okay dowladday ku xiran tahay يعني معقول قال waxay tahay dawlad maanta inaan joogno oo systemka iyagu isticmaasho shahaadadaas inay ka aqbalayso midna Mareykanka ka aqbalayso okay Dubai ka hadalna Dubai waxay ka aqbalay FAA tanna ka aqbalay European ka aqbalay labadooda okay ما شاء الله waxay ku xiran tahay shahaadooyinka adiga okay مثلا wadamahan Afrika maanta markaa ka bagatid jaamacooyinka oo duulimaadka bagatid labada shahaado mid kamid ah ku siinay waxay ku xiran tahay dawladda iyo shahaadada ay la tacaamulto ama maxaa la dhahaa organizationka ay la tacaamulto okay mu'assasada la ku xageysan tahay mu'assasada ama munadamada Soomaaliya ama ururka odii halkan fadhiyo waxa af Soomaaliya aad iyo aad ugu qoran fahamtay fa dhalinyarta oo dibadii halkan qof bay meel isku koogan dhibkaas ay leeyihiin maanta adii ahaan waxa ka hadlaynay afan type rating systemka oo diyaaradda marka type rating shirkado in qaar waxa lagu baraa lacag waa inaad bixisaa koorsooyinka lagu baraayo systemka diyaaraddaas noocaas 747 marka diyaarad shirkadooyin qaarne maxaa la dhahaa free kugu barayaan laakiin waa inaa u shaqaysaa iyaga contract yani kula suubinayaan 10 years ama 5 years waa inaa iyaga u shaqaysaa waa shirkad kale ka aadan shuruud waa miya shuruud waa nacam free kugu bagaysaa laakiin soo waa ana kayd u shaqaysaa okay nacam qofka maanta wuxuu ka fikiraa ana qofka ma wax free ugu bagay aan 4 sano camal mise dhowrkaas sano wax ku bagtay free oo nolol maalmeedka isi jiri waa dhalinyarada Soomaaliya soo fikiraya kadib shaqa akii markaa ka bilaabo maxaan helaa waa yani maanta shaqada markaa soo tusib muhiimsi ma u shaqeynaysaa mise dadkan maanta mushaar fiican oo ku siinayeen aad horumar ku gaartid ama markaas mustaqbal ku dhisi kartid aad wax isku tagtid agaalka wax u joogtid dhankaas man fahamsi kartaa dhanka payment company markaa u shaqeynaysid wax bixiskood yani mushaar ahaanta iyo waa wax oo muhiim ah waa laanu qof maanta dhalinyarada Soomaaliyeed meesha ku og fikir waa intaas waxa uu dhahay nolosha waa saddex wax waay saddexdaas wax qofku haddaan saddexdood oo dhamaystirmeen waa qofka bini'aadamka ugu magacaabay si fiican u fikir fikirkiisa fikir midda koowaadna waxa lagu dhahay waa wuxuu cuni lahay
mid labaad wuxuu meesha seexalahay mid saddexaad markaas meel tacliimta soo gasha waxbarashaalka magna waxaa soo gasha markaas caafimaadkii wax la mid ah fasaadka ninka haddii maxaa la jiifkiisba oo markaas meesha jiifna kan laga bixinayo iyo cunto kan la siinayo oo maanta mustaqbal kale iyaga kan lahayn ninka waxa qofka binaadamka markaa ma shaqeeyo kooxmo meesha kuma gaagaay waxna ma soo kordhinay waxna hami ma galay waxaas inoo bagto dhankaas ka maadaama arintaas aad iyo aad u danaynis ilaa haddana waa bagataa maasha allah waxaa rajeynaynaa insha allah 2 sano soo socota 3 sano soo socota inaad shahaada fiican ka qaadatid aad kana qaadid mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo kabtanyaasha mise pilotyalka pilot allah masha allah horta pilot yani oo Soomaali way jiraan oo wiilal leh gabdho way jiraan laakiin saas taqaanid ma jirtaa saas looma arko yani maxaa la dhinacana dad oo social media way ka buuxaan okay laakiin dadkii ayar oo maxaa la dhahaa saas looguma yaqaano aviation industry Soomaali ahaan marka waxaan ka hadashay dhinaca paymentiga ama salaryga marka adiga aad dhamaysatid typewriting rating shirkadaas shaqo u doonatid adigana waxaa haysataa type rating markay ku siiyaan shaqo first officer aan noqonaya first officer waxaa qof pilotka oo wax fadhiyo the left kursiga dhinaca bidix dhanka midig ma noqon mise bidix ma noqon dhinaca midig afan dhinaca midig dhinaca bidixna waxaa fadhiyo captainka Soomaaliya okay midka darajo midka garaada sagaya horta isku okay captainka garaada sare laakiin kulligooda waa pilot yani waxay suubinayaan way yaqaanaan kana waa pilot wax mu kala duwanaa laakiin waxay kala duwan yihiin responsibility ama mas'uuliyadda captainka wuxuu leeyahay mas'uuliyadda dadka dhan ku jiraan diyaaradda asaa mas'uulka okay waa marka ka hadalna salaryga waxay ku xiran tahay kula shirkadooyinka marka iyo waxay ku xiran tahay adiga booska aad joogtid yani hadda first officer aad tahay iyo captainka isku mid ma noqonaysin salary ahaan ama mishaar ahaan salary ahaan waa mishaar ahaan isku mid ma noqonaysin waa kala sareynaysin yani adiga aad qaadanaysid $2,000 asiga wuxuu qaadanayaa 5,000 fahmino marka marmarna waxay qaadataa 5 sano inta aad ka gudbaysid maxaa la dhahaa first officerka waxaa u gudbaysaa captain aan noqonaya yani 5 sano ay kugu qaadanaya 5 sano laakiin markaas waa shaqaynaysaa 5 sano waa shaqaynaysaa on available miya qofka maanta ma koo bagto intaas ka soo dhamaado macquul kalmay tahay qofkaas inuu maanta isla magaanta inuu maanta shaqo helo mislaagay muddo ilaa intee ku qaadanay inuu shaqo Soomaaliya ka helo oo shaqo helo wuxuu soo bagto inuu ku shaqeeyo okay hadda horta xaaladda aan ku jirno coronavirus corona ka bixi doonaa doo ilaahay insha Allah hadda laga baxo laakiin hadda lagu sii jiro shaqooyinka aad yani muu maleynaa in loo baahanayo mustaqbalka pilot sabab duulimaadka yaraanaya lana waxaa ku jirna pandemic Soomaa iyo cudurkan uu faafay marka diyaaradii hadeeba shaqeyneen duulimaadka pilot in loo baahdo waa may okay waxaan u dhamaadona doo ilaahay hadduu dhamaado okay hadduu dhamaado waa loo baahanaa maxaa jira dheh caalamka hadda uu ama maxaa la dhahaa adduunka yani yani development world oo noqonaya yani maalin kastana waxaa sii hagaagaya meelo cusub soo baxayaan soo baxayso marka dadkana fursadooyin cusub oo loo visit gareeyo ama dalxiis loo tago marka meelihii dalxiiskii hadday saas u bateen waxaa loo baahan yahay diyaarad soo maha diyaaraddan yaa wadaya waa pilot marka pilot shortage oo jirnaana pilot loo baahdana oo jirnaana soo bixitaankan oo gaagaalka xitaa company Tesla la dhahay oo weyn oo gaagaalka soo saaro inay automatic ahaan inay ay ka iswadaan automatically sax iyo inay waxay ku shaqeeyaan dabka koontada caadiga batiga inay ku shaqeeyaan
فمعقول قال ما يتا دياغوين هذا حتى كمبانيال حتى كمان إن سيدا السميان أو معقول قال ما كازين على سمايو أوتوماتيك دي هذا أيدي إسك حينس أنت نكين كعضو صومال تكتو ودمك لا تكتو مين كتكتو مالها تكتو تيلي ما عاد كودا اوتوماتيك يدون قف وذنين اما أيضا بطاري اهان لو جارج غري ما بتيجي هم أيضا إن أيد يعني إسوا la iska dhaafo petrolka ما إن أيد إسك حسبه iyo iyada iska hayso ها like full automatic autopilot ka wadamaya ها autopilot okay autopilot horta waa jira autopilot كمبانيال هذا ha diyaaradaha waaweynka way isticmaalaan autopilot laakiin markay isticmaalaan waxa markay gaaraan destination ama altitude destination ay jirto marka kacda diyaaradda human help ولكن إلا هذول بن آدم عاوناي اوكي laakiin shaqada kaligeed ma suubinayso ala akmal wajh ama shaqada kulliga dhamaystiran ma suubinayso okay macquul gal ma hada sanooyinkan soo socdo inay diyaaradda la soo saago oo ayada iska xeenayso automatically bin aadan wax ugu baahneen oo computer adoo halkan fadhiyo sax hal mo bas information iyo data dhan gelisid iska xeeso meesha qabtay tagto ee isdejiso horta riski waaye riski maxay ku tahay ku sheegaa naam kumanaan ku jiraan oo dad ah diyaaraddaas marka ka soo qaad lacala yani autopilot ku halaawe so inuu pilot joogo Soomaa oo fix gareeyo ama diyaaradda u wado gacan ahaan ku wado oo systemka doo baxo gaale ahaado waa meelahan dhismeega waxa meelahan ka socda waxaa dhihi kartaa macquul hadda xilliga hadda lagu joogo macquul kal ma ahan in la sameeyo totally 100% self driving مثلا maxaa lahaa autopilot oo 100% macquul kal ma aha waa in aadan inuu caawiyo waa qasab meesha inuu ku joogo يعني still لانه ما تقانيد شقada ama autopilot inuu halaabe wax kasta oo bin aadan sameeyo halaabe okay يعني still bin aadan loo baahan yahay loo baahan waa shaqo fiican بيمنتيغا exactly maanta qofka bin aadan xabna dhaleeyay aham galino waa fahamta ahami oo macquul ah صح بيمنتيغا ilaa intee gaaysa maanta ninka ugu yahay waxa diyaagooyinkooda waxa umaleynaa qolka waxa gali jooga ilaa 3 qof diyaarada wadi jooga umaleynaa waa meesha maxaa lahaa baalka magaci maxaa lahaa si qolka diyaaradda lagu cockpit cockpitka af Soomaaliyan saaga maqan waa qolka diyaaradda qolka lagu waa qolba dhibka nagu hayo qolka maamulka okay diyaaradda hore waxay ku imaajinaa umaleynaa 3 qof wadi jooga 3 qof waa first officer kan ugu koowaad سيوتا نعم waxaan magaynay meeshan maxallaasi payment dalgan systemka diyaaradaha waxa la qolka controlka 3 qof lagu wada joogo malena صح first officer ka iyo captain ka iyo engineer ala socday okay hadda saas ma amsa isbedel hadda isbedel diyaarada qaarna way jiraan saas ah okay ilaa hadda systemka isticmaalaan waa engineerka muxuu qabtaa marka engineerka waxyaalo badan wuxuu fiiriyaa diyaaradda habka u socoto iyo oilka waxyaalo badan systemka dhexdiisa yani wax ka fiiriyaa iyo yani isbedelka diyaaradda intay kacayso intay degayso ama intay hawada ku jirto isbedelka oilka pressure waxyaalo badan engineerkaas waa shahaadooyinkiisa isna waa gooniya miya mise waa inta shahaadooyinka ninka pilotka baganaayo ayuu qaadanaa 3 shahaadooyinka oo ka bilaabana BPL-ka iyo maya waa gooni engineer-nimaha way ka duwan tahay okay payment shaka qofka maanta qaadanayo diyaarada ugu hooseysa diyaarada Afrika maybe ka soo qaadada diyaaradaha Soomaali maanta maadaama wadalka insha Allah dhismi doono oo bada doonto maxaa la dhahaa kambaniyaal fara badan soo bixi doonaan oo duulimaad ah waliba Soomaalida waxa isku dayasha la yaqaan qof maanta wax soo saagtid waa umadana isku mid noqonaysa bishaakad ilaa halka gaari doonay قاش بدنا sheegna wax macquul sheeg wixii yani adduunka wax ku shaqeeyo exactly horta waxay ku xiran tahay shirkadda aad u shaqeynaysid shirkadooyin waxaa jirta oo minimum ku siinayso $2,000 bishii isbuuciya bishii okay
laakiin waxyaalo kale oo benefits ama fawaa'id ah jirto faa'iidooyin oo dhinaca ku yaalo waxaa ka mid ah tikidooyin oo bilaash ah lagu siinayo oo free ah adii familkaaga waxaa ka mid maxaa la dhahaa hotel aad ku degtid oo adiga sanadkii hal jeer camal bixinayna ama qaarkooda free waaye qaarkoodana waxaa laga jaraa nus salariga wax laga jaraa company wal maasas ku dhaqmo mise company hal qaagayo qaar waaye laakiin kulligooda yani maxaa la meel kasta aad tagtid destination ama rixlo kasta meesha ay ku qaado ama ay ku geyso waa hotel aad tagayso ma hotelkaas iga bixinayaan shaqay ku yaqtaa oo ay wax dhaba ka saagan oo qasab waa maxaa la dhahaa balka shirkadooyin qaar waxay bixiyaan xataa haddaad xaas leedahay aad leedahay awlaad xataa waxay bixinayaan educationka awlaadaada waxbarashada ciyaalkaaga ilaa ay ka gaaraan high school waxaa ka mid ah Qatar Airline xataa waxay ku siinayaan guri okay oo halka dalka America siinaysa mise markaas Qatar laga dhaxsina Qatar laga dhaxsina because waxaa ka shaqeynaysaa al-Qatariya Soomaaliya diyaaradan yani marka waxay ka bixinaysaa waxbarashada oo ubadkaada sax guriga deganaysid oo free ah iyo mishaaka ku dheer caafimaadkaada ku dheer soo saas ma iyo fasaxooyin ajirto fasax yani hada shaqaysid ka soo qaad 4 beri 5 beri oo fasax lagu siinaa okay ama caks wow 5 beri shaqeynaa 4 beri lagu siinaa marka waxa soo bikarta xataa mataqaana fasaxyadaada waa meel dhigan fasaxyadaada meel dhigan ilaa ay ku gaarto bil oo fasax qaadanay bil okay duulimaanta ma kala duwan tahay marka meel fog aadaysid meel dhow marka u duulaysid dhinaca oo maxaa lahaa markaas qarashka oo bixiyaan mishaak مثلا ما انت مقالنا ما قرشك لو سيناي مثلا ما انت حق دوليسا by the way waxaa jirta laba nooc waxaa jirta major airlines iyo international majorka waxa waaye hal dawladood yani ka soo qaad misaal Kenya dhexdeeda bes local يعني كينيا كدولة إيربورك كينيا ما حتجي local كينيا دحدة ذلوا لكن internationally وحنا ملنا فوائد يسوى كبدن تاع international pilot تاعي يعني advantage الفرق بدن وتا advantage فوائد بدن وتا اوكي هاكن هادي وانا احسن واو هذا واحد تحيو كل في سنه علابتها ماشي كده وهذا بمحل اسكو قالوا why not محاجر همي يقصد داي loo baahan yahay sida camalinay noqdaan pilot ma sha Allah caalamka soo wareegan okay dumarka oo duulimaanta bagso dad ma ka taqaanaad oo Soomaali ahna oo hada duulo iyo qaabka markaas gabadha maanta dala qabo saxaas leedahay tahay mise gabadha hadii tahay wili la koogsanin oo hagaag laheenin maanta sidee ku keenaysaa intii halkan ina ka doosho wadan kale aado oo isbuuc soo maqnaato mise 3 maalmood soo maqnaato oo cidadii familkeeda keenin meesha qofka la joogto iyo la seexinay iyo waxa systemkaas maamulka ilaa ka xiganayso waxa la fahmay jeeta marka la fikro maanta taas laakiin waxay qosaan naaxiyad diiniya naaxiyad yani dhinaca diinta laakiin waqti inta qof aad asaas diinta ugu dhaqmo joogto sax fa diintana adoo fiiganay dhaqanka Soomaaliya adoo fiiganay jibiga hadal lagu joogo yani gabadha ma jiraan oo maanta Soomaali ah mise dad aad taqaanid way jiraan qaab markaas noloshood qaabka isku bedelay laanu maanta xalay hadda inta ka duushid aadid maybe masagana aadid misa wadaman kala Afrika wadan kala naasi aadid aad halkaas soo fadhiisay diyaad inay soo seexato hal maalin laba maalin sax horta taas waa qalad yani dhinaca diinta loo fiiriyo qalad laakiin hadda dhinacan hadda u fiirisid dhinaca maxaa la yiraahdaa dhinacan community-ga ama bulshada inaan ku jirno bulshada waxay noqotay bulsho ka duwan bulshadii aan la yaqaani jiray marka bulshadan waxay wagtahay yani waxay isku keenayaan western ama dadkan European ama cadaanta nacam reer galbeedka marka yani waa ujeedaa inuu qalad yahay Soomaa laakiin
maanta wax walba dhacay mugta wax qofka kasta- gabay qofta Sax dumataa waay. inay inta ka baxdo wadanka la joogto wax Ah. walba saaxiibay la keentaa wax lagu dhawaaqo boyfriend lagu dhawaaqo wax agama fog badan jiraan aad meelaha soo gal kagaan صح لكن في حد دافع دعكو، قاقع حيتا- وحيالك لا جرى وماشي بدلين يعني قوانين دوليه اوكي اما قانون عالمي اي ها oo dawlad kasta ku maamusho aha maxaa la dhahaa visitors ama dadka u imaadaan aha oo siyaax ahaan ugu tagaan ah ama dalxiis marka dalxiis hadaa u tagtid adigana aad tahay dumar laakiin waxay ku xiran tahay dawladda u tagayso soo maaha aha dawladooyin waxaa jira oo aanan haysanin dhinacaas maamul ama qaanuun caalami ah oo caalamka laga yaqaano marka it depends yani waxay ku xawintaa dalka aadami ha okay arintaas markaa ka gudubno oo dhanka dumarkaaga dhacday aqoon wax markaas information toosan hadda ka mahaysid waa ka booday baasha iska dayaysa awitaanka caabitaanka way ku socdaa ama dadkina la ogeysiiyaa waxaan joognaa maqaayada Faadumo Hindi waa maqaayad service-keeda aad iyo aad u fiican sagaxatan sax waxay waad awsa saaxiibka awitaanka iska wadaade cunto ku haysanado socon service-keeda aad u fiican joogeedu degan yahay cuntooyinkeedu aad iyo aad u fiican yahay dhadhanna uu leeyahay price-koodna waa macquul ma sha Allah halkan isniya ku dhaxtaala Nairobi Kenya kusoo dhawaadaan inaydaana insha Allah haddana sheekadana sii wadanayna dhanka pilotka wax markaa ka baxan payment-ga diyaaradaha oo ciladaha inuu ku imaado maanta oo diyaaradaha qarxayo diyaaradaha lumaayo diyaaradaha dadkii la waaynayo kambaniyalka qaar waa agta umleena labadan sano lasoo saddexdan sano lasoo dhaafay ilaa 10 diyaarado oo dad baasanjiga saarnayn boqolaal ku gaagay ilaa kun way gaagayna laga yaabo diyaarada qaado ilaa 500 qof ruux binaadan dhimashadood iyo waxood sababku ku imaado waxa keenay iyo dadkaas jiidood iyo naftood iyo waxood yaa loo gaacana iyo cilad inta ka jirta maxaa la diyaaradaha miya kambaniyalka soo saaray diyaaradaha laftooda miya pilotka miya fa intaas binaadka cabsi gelisa mugtahay waxaas fa dadka qaar hayta duulimitaanka diyaaradna inay ka baqaanbo waxay jeceliin inay gaari wax kale ku safraan fa arintaas waxa kale leedahay horta arrintaas waxaa ka leeyahay diyaarad kasta waxay leedahay black box yes oo yani sanduuqa madow ah sanduuqa madow ha oo sajilaya maxaa la dhahaa rixladan ay waxay ku saabsaneed intay ka baxday iyo intay ku degtay intay ka duushay iyo intay ku degtay aha iyo maxaa ka ag dhacay cockpit ama qolka controlka ah ya labada pilot maxay ku hadlayeen okay se iskula multamayeen iyo waxyaalo badan nacam marka marmar waxaa jirto oo maxaa la dhahaa waxaa jirto wax jihaaz la dhahayo maxaa la dhahaa oo raadaarka soo qabanaya ah yani raadaar hadduu ku dhow yahay oo dhulka ku yaalo ah waa midka diyaaradaha iyo diyaaradaha soo qabta ceelka mag walba diyaarad walba mago kogtoolka waxa waaye oo hawada ceelka soo maa oo hadda midda Soomaaliya xataa Kenya yaali jooga waxa kala sageynay okay nacam marka waxyaalo kale la dhahayo airspace na jirtaa maxaa la dhahaa waxaa jirta A B C D E G airspace waa 5 airspace nooc kastana wuxuu leeyahay altitude marka yani waxaa ka wada masaafo dhirir ahaan masaafada intuu soo qabanaya masaafadiisa ha marka every airspace aa gashid ama airspace nooc walba aa gashid raadaarka oo kusoo qabanaya yani dadka controlka ku jiraan qolka controlka ama towerka waa shaashada waa laga arkaa marka haddaa ka koraysid meel diyaaradda ay ka korayso masaafadaas ama irtifaacaas hadday ka korayso ma laga yaaba inay soo qabato iyo marmar waxaa ku dhaco qalal diyaaradda qalala ku dhacaya ama markuu qalal ku dhaco jihaaskan oo maxaa la dhahaa raadaarka soo saaraya ya waxaa laga yaabaa inuu ka halaabay ama wax inuu ku dhacay ama weerar lagu qaada laga yaabaa ya ayadoo ceelkaas halkaas ku jirto weerar lagu qaada wax lagu gamay eena soo dhacday taasna laga yaabaa inuu raadaarka laga arki waayo
mag walba waxaa maqalnaa mediaha diyaarad wax soo gaaro black boxka laga raadinaa black boxkaas ma laga yaabo inuu bogo inuu wax ku dhaco inuu in la waayo yani inuu gubto mise waxaasna ma soo gaaraya black boxka waxyaalahaas wuu soo gaaraa laakiin waa adiga si oo farsamo waa la farsameeyay waxaa loo habeeyey si oo soo u halaabin ama soo u burburin marka yani inta badan waa la helaa asagoona burburin laakiin dhif mooye inta badan waa la helaa okay siiski soogta intuu yahay laanno aan laftiga ma aqaana dhowr jaga isku day inaan gaadiyo xajmigiisa maxaa lahaa meeqa mitoo gaaga hal mitoo laba mitoo maya wuu yaryahay box waaye box camal waaye yani intaan gacanta siiska ma ka baxay maya waxaa waa adiga 10 centimeter by 10 by 10 10 by 10 centimeter ama 10 by 18 meelaas inch mam centimeter okay waa box aad u yaga okay kasoo waa fahmay black boxka sidaas oo yaala badinankiina uu ku badbaadaa okay cilidooyinka marka ku imaato hadda soo tagasay maanta dad haytaa dad badan ka maqan waaw sababka ay tustay laakiinse black boxka ay sheego sida xataa even waa mid madow ma ahayn waa black box oo lagu tilmaamo black waa yellow waa midabka loo leeyahay ilaa maskaxda xog fulnad boxka inuu black yahay inuu madow yahay black waxa lagu xamaleena diyaaradda markay dhacdo ama wax uu dhaco wax xun wax yani madow isku bedela ma fahmino okay laakiin inta waxa lagu maya hadaa fiiris xataa black uu leeyahay midib ahaan laakiin total bo midib ma madow yani qofku maskaxiis maanta ku soo dhaysaa sanduuqa madowga ayaa laga raadinaa mise calaamad ah maskaxiis qofku ku soo dhayso wax oo ganji madow magsan oo afar geesood aan fahamtay baakan afar geesoodna uma dhawa abi waa iska sidaas camal cilada ku imaato ilaa hadda meel ma la saaga ciladooyinka diyaaradaha ku imaadaan oo sidaas u badan maalisha u dambeysay laba diyaarad hal sano gudihiisa oo maleenaa miyamogi ayaa ka bogbogtay waddamaan asia u badnayn hamla yurubtani waxaa hal miyamogi 5 sano lasoo dhaafay fa waay reasonka oo qaasna wilba haddana maalisha laftiga diyaaradaha kambaniga kasoo qaatay ma ciladeysnaay ifin lamid ah maxaa ka jegay ani waxay la tahay diyaaradda inay ciladeysnayd oo dhinac farsamo waa company nafska qaabku soo baxay dibkeen oo dhankaas aha okay maanta companies muxuu qabanaa sal dib loo magacaabay dib waa loo raacay waxay try gareeyeen ama tijaabiyeen inay fx gareeyeen ama ay suubiyaan okay ciladaas farsamo ciladaas ku imaatay intaas dad wadana intaas dad ka dhintay oo intaas gaaga maxaa lagu boqo qofkii agoon naqday qofkii wadiska tagtay qofkii jaceelkiis ka tagay agmaasan company markaas oo maxaa la diyaarad soo saxamna diyaarada company oo ahay ay sameysay ma haysa ay bas ma aha company oo ahay 7 oo malena ama 747 oo ahay okay company Malaysian Airlines soo okay company oo diyaaradaha soo saaray oo ciladaas ku soo saaray oo intaas dad ku dhamaaday maanta wax ma laga qaadi diya ah mise wax umadaas oo like dawladda total ahaan magaca sumcad xumo midna sumcad xumo u keenay maxaa la diyaarada maxaa la Malaysia Airways midna xadad u laayay intaas umad baxday qashkiis ma gudii mise ilaa duulay waa amal ma socotid taas lama socdo laakiin waxa la socdaa in wax kasta kugu dhaco wax insurance la jiro oo adiga aad leedahay wax kasta kugu dhaco xataa diyaaradda ay kula goobta ama aad dhimatid ehelkaagin ee wax siinayaan yani حال لها صيف Soomaaliya laakiin islaam ahaan aan u naqaano diyo diyo naam okay laakiin wax ay kama kasmo tacaaf ah waa bixi waa hadalka dawladda iyo wax ka soo baxay company okay waqti aad iyo aad u mahadsantahay maanta adaa mudan Umar مواضيعda waa mowduuc aad iyo aad qurux badan yani maanta dadkii waxay qaaytay aan aqoon u lahayn maanta aan aqoon u lahaaday aan ugu soo kobcay insha Allah xalqa kale noo samay doonaa oo marka waxbarashada ay dhameysid laanu dhanka qaabka yani oo maanta online ka qaabka wax loo bagtay exactly ana ka wagaysto iyo qaabka maanta oo fudud oo maanta qofka ku baaga karo oo waxna shaqo ku heli karo fa intaasna insha Allah waxa xalqad soo socda ka wagaysanayna insha Allah waxaan maleynaa xabtana ku dhameysay waxbarashada jaamacooyinkan oo adduunka hado ilaahidmo وكل صعدونا إن شاء الله فدك الله لهذونا إن شاء الله فأخياتنا حنا برنامجنا الدعوة إن شاء الله مخلأها كده جستان ساوند كلاود يو إن شاء الله بيج كنا فيسبوك على سوكلنا إلا يو محل يوتيوب كدو أبدمو ساوند كلاود كحود كسارة ساوند كلاود نحكي فيه يعني هو إذاعة أو عصرية سواء
wuxuu ka caawinaa maanta codka inaad dhegaysatid inaad iska daysid hadhowti ku soo laabatid meesha gabtid meesha ku magaan agsii wadid hal daqiiqo ka hor adoo ahaa 2 daqiiqo ka hor meeshiis inuu ka dhaqaaqin xilli walba oo baahan tahay ku soo ceshi kartid idaacadooyinka hore saas ugu duwanyaa SoundCloud-ka dhanka YouTube-kana maqal iyo muuqaala kalisa insha Allah ilaa iyo Facebook-ka dadna haddaad haysiin oo maanta aqoon leh dhalinyaro Soomaaliyeed dumar ahaado rag ahaado oday ahaado maama ahaado oo maanta waxna ku soo kubcinayso anakana u baahan idinkana u baahan tihiin inaad comment hoos ku soo qortiin insha Allah aan isku dayno qofkaas oo hal lahayn aan u xaqiiqi lahayn halkan ku soo fadhiisin lahayn مواضيع عن جعشين نكاد الله دوي لهدمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته